war degdeg ah diyaarada sida ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo loo diiday inay ka degaan degmada Baardheere ee gobolka Gado yay tahay cidda isooristaaga ku sameysay amarkan xagee ayuu ka soo baxay tallaabo intee la eg ayay dawladda federaalka Soomaaliya arintan ay kaga jawaabtay Jubbaland war ayay ka soo saartay arintan haddii aad nagu cusubteen fadlan ku soo biir page-keena oo ka mid noqon saaxiibada inagu xiran si aad halkan uga heshaan warar warbixino muuqaalo aan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo ku sugan degmada Baardheere ee gobolka Gado waxa isooristaag lagu sameeyay sida qorshe uu ahaa in magaaladaas ay maanta ka degaan diyaarada sida ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dawladda ka gadaal markii ay gabi ahaanba ku soo fashilintay galkii la xiriiray Jubbaland ee dhinaca Raaskambooni waxa iminkan la qorsheeyay in dhinaca Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe si toos ah looga dhax weeraro qaybo ka mid ah gobolka Gado amar ka soo baxay maareeyaha garoonka diyaaradaha degmada Baardheere ayaan isooristaag loogu sameeyay diyaaradaha ciidanka siday ee maanta qorshe uu ahaa inay ka degaan degmadaasi waan arintan la xiriirto oo ay ku baxeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gado ee taabacsan dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo guul dareysatay iyadoo oo ugu dambeyn keentay in maareeyihii garoonka diyaaradaha degmada Baardheere oo qayb ka ahaa saraakiisha ay aadana warsugida iyo sirdoonka qaranka nisa ee gobolka Gado gabi ahaan baliiska laga saaray amar ka soo baxay taliyaha ay aadana warsugida iyo sirdoonka qaranka nisa ee gobolka Gado ayaa lagu cadeeyay arintan waxaase jirtay in si toos ah xiriir uu kala dhaxeeyay maareeyaha Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay keentay arintan waxaana gudaha garoonka la geeyay gaadiidka nooca dagaalka ah iyadoo oo sawir laga soo qaaday halkaasna ay muujinayeen in ay si toos ah feejignaan u galeen gabi ahaanba shaqaalaha garoonkaasi waxa halkaasi ka taagan xiisad la xiriirta arintan isooristaaga uu sameeyay maareeyaha garoonka diyaaradaha degmada Baardheere dhaqdhaqaaqa ciidan oo iska soo horjeeda ayaase laga dareemaya aaga garoonka waxaase qaybo ka mid ah degmada Beled Xaawo ka baxay ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo halkaas u tagaya isla markaana doonaya in xiisadan ay ku baxaan saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Gado ayaa xaqiijiyay in aysan marnaba raali ka ahayn in isooristaag lagu sameeyo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ciidankan ayay sheegeen maamulka gobolka Gado in ay qayb ka noqon doonaan howlgallo ka dhan al-shabaab oo deegaanada maamulka Jubbaland si toos ah looga fulinayo dhawaan waxa soo ilaaday kulan toos ahaa oo ka qabsoomay madaxtooyada qaranka loogana hadlayay galka Jubbaland iyadoo uu gabi ahaanba gacanta galka Jubbaland arrimaha la xiriira hagida howlgallada halka laga sameeyo laga wareejiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ka gadaal fashilkii ka dhacay deegaanka Raaskambooni toddobaadkii hore ila wareedyada ayaa xaqiijinaya in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dhinaciisa xubnaha taabacsan ee gobolkaasi ku sugan ay dadaal badan ku bixinayaan sidii isooristaag lagu sameyn lahaa ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo doonaya inay isku fidiyaan qaybo ka mid ah gobolkaasi ciidamo ka tirsan kuwa Ethiopia ayaase wararku sheegayaan in Axmed Madoobe uu doonayo in gabi ahaanba gobolkaas uu isticmaalo gacanta Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa gobolkaasi marka loo eego ku jira degmooyin dhowr ah oo uu ka haysto taageero xooggan hase ahaatee dawladda federaalka Soomaaliya oo si toos ah xiriir ula sameysay xubno siyaasiyiin mucaarad ku Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxay uga yeertay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyaga oo si toos ah arintan qayb uga qaadanaya sida wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo Barhiiraale warar ay ku soo kordha arintan wararkeena warbixinadan dambe ayaad ku daawan doontaan nabadgelyo